بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر محمد يلحو إن شاء الله تعالى. إحنا شرحنا قيبتها وحلنت مسؤولين حسابته قيبتها قيبتها كنت أفراد بيننا نقطة إن شاء الله تعالى. حولها سيدنا سوسعته قدير أو سميسان قابل دي أيا له وريك لان صدني لح متر هدي لر كيلومتر هدي لر كيلومتر ديري هاي بلعة هذا باه هذه بلعة قدك لرك قدك يبدك قدك waxaa xusid mudan in su-aasha tan oo ina weydiiyey aniga weydiiyey adigana uu kusoo weydiiyey ustaad cabdalla cali maxamed kulmiye insha allahu tacaala maadaama aanu sharaxayo waxaan isdhahay markaas amaad duubtaayo dadka markaas iyagu fadhiistan insha allahu tacaala asana uu mahadsan yahay su-aashu saan bay u dhacaysaa hadda mar kale ku celiyo god yar waa god u samaysan qaab leediya yani qaab leediya ayuu samaysan yahay leediga waxaan ku naqaanaa inuu markasta u samaysan yahay qaab sidaas oo kale ah yani leedigu inuu leeyahay laba dhinac oo inuu iska soo horjeeda iyo laba dhinac kale oo iska soo horjeeda oo isla eg hadda dhinacan iyo dhinaca waa laba dhinac oo iska soo horjeeda islana eg dhinacana sidoo kale waa laba dhinac oo iska soo horjeeda islana eg marka dhinacyadaas ogow balac iyo dherer baa lagu magacaabaya dhererkan dhinaca kore kan waxaan ku magacaabeynaa dherer dhinacana waxaan ku magacaabeynaa balac kani waa balac kana waa dherer marka god yaro saa yaro u samaysan ayaa wareegiisu wuxuu u yahay 36 mitir yani perimeterkiisa ayaa waxa uu yahay 36 mitir marka hadda waxaynu naqaano waxa waaye wansiiyo waxa weeye wareegi oo ah 36 mitir dhererkina waxaa la yiri waxa uu 2 mitir dheer yahay balac yani waxa weeye dhererka leediga 2 mitir buu ka badan yahay balac haddaba su-aalahan la weydiiyey waxa waa 3 su-aalood balaca godka la doonaya in soo saarno sidoo kale dhererka godka in soo saarno iyo bedka godka in soo saarno okay ugu waxaan ka bilaabaynaa waxaan leenahay maxaynu haysanaa horta waxaan haysanaa wareegi waa 36 mitir waxaan naqaan waa mitir sidoo kale waxaan naqaanaa in balacu uu 2 mitir ka yar yahay dhererka ama inuu dhererku 2 mitir ka badan yahay balaca horta ugu horreyn waxaan leenahay w noqdaan w waxaan u qaadanaynaa width ama balaci ayaan leenahay w sidoo kale l waxaan u qaadanaynaa length ama dhererkii godka ayaan u qaadanaynaa intaas markaynu qaadano kadib waxaan leenahay haddaynu w u qaadanay balaci haddaan u qaadanay w waa balaci w haddaba dhererka marka muxuu noqonayaa dhererku wuxuu noqonayaa maadaama w eta balaci dhererku wuxuu noqonayaa balaci oo lagu daray 2 balaci oo lagu daray 2 ayuu noqonayaa balaci oo lagu daray 2 ayuu noqonayaa haddaynu markaas si kale u turjumno aan egas u qaadano balaca haddaynu balaca egas u qaadano maadaama dhererku 2 uu dheer yahay balaca egas lagu daray 2 waxaa noqonayo dhererkii baa noqonaya haddaba perimeterka caadiga waxaan naqaanaa inuu la eg yahay ama qaacidada perimeterka leediga marka laga hadlayo ama wareega leediga waxaynu ognahay inay tahay 2 bracket furan dhererkii oo lagu daray balaci labadana dibadda ugu dhacsanta haddaba balaci waxaan haysanaa 36 inta marka waxay leeg tahay waxay leeg tahay 2 dibadda inooge dhererka iminka dhererka maxaan ku bedelaynaa dhererka waxaan ku bedelaynaa egas lagu daray 2 egas lagu daray 2 egas lagu daray 2 hadaan dhererka aan ku bedelno kadib balacina maxaynu ku bedelaynaa iminka balacina maxaynu ku bedelaynaa meesha aan soo xirino samayaha balacina waxaan ku bedelaynaa un kaliya egas hadaba waxaan leenahay 36 ayaa waxay leeg tahay 2 marka egaska isu geey meeqa waa 2 egas lagu daray 2na soo qaado then waxaan leenahay 36 ayaa waxay leeg tahay labadaa ku dhifo tirada gudaha ku jirta 2 egaska iyo plus 2ga haddaba 2 ku dhifo 2 egas meeqa waa 4 egas waay 2 ku dhifo 2na waa 4 haddaba si afartan aynu u baabino afartatan intana waxaynu ka jaraynaa 4 halkana waxaynu ka jaraynaa 4 marka 4 isla saar marka 4 egas marka waxay leekaanaysaa 36 laga jaro 4 waa imisa 32 waxay leegtahay markaan 32 okay dan shaqada marka sii wadno insha allahu tacaala in soo koobayaay 4 sin u helno egas oo kaliya dhinac kasta waxaan u qabanaynaa 4 maadaama 4 ay ku dhaxsantahay egas 4 isla saar dhererka egas marka wuxuu noqonayaa 32 loo qaybiyo 4 oo ah 8 halbeegana waxaa raacsanaa mitir marka halka waxaan haynaa egas ugu egaskan waxaan u qaadanay balac baynu u qaadanay dhererka muxuu la ekaa dhererku wuxuu la ekaa egasti oo lagu daray 2 dhererku balacu 2 dheeraa soo ma iminka egas waxaan soo helnay 8 mitir soo ma waxaan ku darsaynaa marka 2 mitir haddaba markaan balacina wuxuu noqonayaa insha asaguna oo waa dhererkii wuxuu noqonayaa oo elawana waxayna ekaanaysaa iminka 10 mitir bay noqonaysaa okay
haddii aan dhir iyo bilic soo helno wax kaloo dira maxay ahaayeen bedka waxaan leenahay bedka waxaan ognahay bedka in lagu helo dhir oo lagu dhiftay bilic dhir lagu dhiftay bilic waxaa marka bedka wuxuu leeyahay dhirirka waa imisa waa 10 mitir oo lagu dhiftay bilica oo ah 8 mitir haddaba bedka marka wuxuu leekaanayaa 80 mitir oo laba jibaaran buu noqonayaa ma la fahmay 80 mitir laba jibaaran noqon tan u hubino si aan u hubino waxaan samaynaynaa perimeterka waxaan ognahay in lagu helo laba lagu dhiftay dhirirka oo lagu daray laba lagu dhiftay bilic laba lagu dhiftay bilic laba lagu dhiftay bilic w u qado dhis ku qado marka perimeterka waxaan leenahay wuxuu leeyahay laba lagu dhiftay dhirirka maxaan soo helnay 10 mitir oo lagu daray laba lagu dhiftay bilicna maxaan soo helnay 8 mitir haddaba marka perimeterka wuxuu noqonayaa wareeg wuxuu noqonayaa laba ku dhifan 10 meeqa waa 20 mitir ogow tan waxaan ka wadaa hubin uun kaliya maxaa yeelay waxaan doonayaa in perimeterka Ronaldsino uu soo baxo marka 20 waxaa ku dartaa 16 waa imisa in marka perimeterka uu leekaanayo 36 mitir 36 mitirna maxay ahayd su'aasha la siiyay perimeterka wareegga intii hore la siiyay ugu dambeyn marka waxaan leenahay jawaab waxaan ku soo koobaynaa saddex jawaab waxaan leenahay ugu horeyn horta balac meeqaan soo helnay balac waxayna soo helnay inuu leeyahay 8 mitir waa su'aasha koobaad jawaabteeda maxaa kaloo leenahay dhirirka wuxuu leeyahay maxaa waa 10 mitir isagana waa jawaabta labaad waxaa kaloo noo dir maxaa u ahaa bedkana maxaan soo helnay 80 mitir oo laba jibaara haddaba saddexdii su'aalood sidaas ay nooga jawaabayeen insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad adiguna fahamtay